dhacahayo ilaahay uu kuu qadaray inaad dulqaadkeeda iyo sabarkeeda ay yeelato oo maxay ka mid ah walaalaha iyo dadkii aad jeclayd oo tagahayo dhimanaya maalkaagii oo khasaara ay ku imaanayso caafimaadkaagii oo baaba'ahaya faqriga iyo gaajada iyo baahida cabsida ku soo food saaraysa anwaacul balaaya masaa'ibta iyo balaayada nuuciyeeda kala duwan oo ilaahay uu qofkan u qadaray inay ku dhacaan oo kugu imaanaysa waa inaan leedahay qalbi sabar iyo dulqaad iyo adkaysimo leh oo aad ku qaabishid waa inaan leedahay tasakhud iyo caroosho iyo xumaan aad kaga xun tahay waxaan inay kugu dhacaan ha muujin ilaahay wuxuu leeyahay wala nabluwannakum bishay'in min alkhawfi waljuu'i wa naqsin min alamwali walanfusi wathamarat ilaahay baan ku dhaartay waxaan idinku imtixaanaynaa oo idinku jarribaynaa wax nuqsaan ah bishay'in min alkhawf cabsi idinku imaanaysa qofkii cabsi baa ku imaanaysa waxaa ku imaanaya waljuuc baahi baa ku imaanaysa waxaa ku imaanaya naqsi xoolihiisii iyo maalkiisii ku dhacahaya naftiisii ku dhacaysa oo qaar ay ka geeriyoonayaan haddii marka maalka xaggiisa khasaara kaaga timi oo naftii ay kaaga timi oo baahidii ay ku soo waajahday oo cabsi ay ku soo food saartay ilaahay wuxuu leeyahay wabashiri saabiriin waxaad u bishaaraysaa nebiyullaahi muxammadow kuwa sabray oo intaasi masaa'ibtaa oo kala duwan markay ku dhacday dulqaadkeeda iyo sabarkeeda yeeshay ugu bishaareen waana kuwa yidhaahda innaa lillaah wa innaa ilayhi raajicuun annaga ilaahay baanu u sugnaannay ilaahay baana leh asaga ayaana u laabanaynaa isaga ayaana noo qadaray waana ku sabraynaa sabarkaa iyo dulqaadkaas waxaa loo baahan yahay waxyaalaha masaa'ibtaa oo dhacahaya inaan dulqaadkeeda aan yeelano walihaada bay ahlucilmigu waxay yidhaahdeen cajaban lisabri tudaawaa bihi alashyaa walaa yudaawaa bishay sabarku la yaab buu leeyahay wuxuu la yaab ku leeyahay shay kaste asagaa lagu daweeyaa culays kastoo kugu yimaada iyo dhib kaste sabarka ayaa la kaashadaa oo lagu daweeyaa laakiin asaga lama daweeyo sabarka asaga dawo ma leh asaga lama daweeyo shay lagu daweyn kara ma leh laakiin shay kaste asaga ayaad u adeegsanaysaa oo aad kaga gudbaysaa culayska kugu imaanaya oo ku dhibahaya cali bni abi aalib wuxuu yidhi asabru min aliimaani bimansilati alra'si min aljasad sabarku diinka iyo iimaanka wuxuu ka joogaa qofka bani aadamka ah madaxu meeshuu ka joogo jasadkiisa kale madaxa ayaa ugu sarreeya ugu qiimo badan meesha uu ka joogo jasadka intiisa kale ayaa sabarkuna diinka uu ka jooga alaa laa iimaana liman laa sabra lah warooyim ogaada iimaan ma leh qof aan sabar iyo dulqaad aan lahayn oo naftiisa aan ka adkayn sabarka ilaahay subxaanahu wa tacaala u amray taacada in lagu sabro waxaa ugu horeeya fahmaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo ilaahay dulqaad iyo sabar ilaahay dhammaystiran ilaahay uu siiyey ilaahay wuxuu leeyahay wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi yuriiduuna wajha naftaada waxaa ku xabistaa kuwa ilaahay caabudaya galab iyo subax iyagoo ilaahay wejigiisa doonahaya kuwaas la caabud oo cibaadada iyo khayrka iyo cilmiga aad baraysid halkaa naftaada ku xabis wa asabru cala ataacaat nafta in lagu xabiso oo lagu celiyo oo lagu xakameeyo طاعاتك يا خيرك يا ولادك